واتهاي داوديال muuqaal kan idiin muuqanaya waa hotelkii saaka lagu weeraray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan weerar ku bilowday qaraxyo isla mar ahaantaana ilaa 3 qarax ayaa ka dhacday magaalada beledweyne qarax koowaad ayaa waxa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kadibna waxa markii dambe goobta soo gaaray rag hubeysan oo markii dambe watay bajaajo iyaguna miinooyin lagu soo raray markii ay gudaha u galeen hotelka oo ay toogashada gudaha ka bilaabeen waxa qarxay mootooyinkii ay wateen oo laba aha kuwaas oo qasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac ay geystay laamaha ammaanka ee degmada beledweyne iyo sidoo kale ciidamada macawisleyda ayaa la dagaalamaya raggii soo weeraray saaka hotelkaasi oo la sheegay in ay markaasi deganayeen odayaal dhaqameed iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dawladda hayeeshee waxa wararku ay sheegayaan in haatan qaar ka mid ah ciidamadii macawisleyda ahaa ay gudaha u galeen hotelka qaybo badan oo ka mid ahna ay markaasi gubteen hotelka oo holac uu ka muuqanaya sida idin muuqatay sidoo kale waxa markaasi wali soconaya rasaas kooban oo teltela oo qaybta dambe ee hotelka ka dhacaysa iyadoona mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay sheegayaan in ilaa 4 qof oo laba oday dhaqameed iyo sidoo kale laba sargaal ay ku dhinteen gudaha hotelkaasi sida uu xaqiijiyay xildhibaan Amiin Jeesow oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee laga soo doortay magaalada beledweyne oo beel ahaan beeshiisu ay deganeed hotelkan xaafad ahaanna magaalada beledweyne uu kaga yaala halka ay beeshiis degto waxaana wararku sheegayaan in wili xiisadu ay taagan tahay ragga qaar ka mid ah hotelka galay wili ay dagaalamayaan wili rasaas teltela ay ka dhacayso gudaha hotelka hayeeshee xildhibaan Amiin Jeesow oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay bal qasaaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada beledweyne aad iyo aad u mahadsantihiin walaalaha bahda saxaafadda isoo booqday muxuu ahay maanta runtii wax badan aad isoo booqo jirteen laakiin maanta way iiga duwan tahay tan muxuu ahay maalmaha kale deegaan doorashadeydii ayay waxay soo weerareen nimankii nabadiidka ahaa al-shabaab hotel ku yaala meesha ayay saaki 2 qarax ku soo weerareen muxuu ahaa ciidan lug oo wadooyinka ka dagaalamayo oo ciidankaas qaraxaas muxuu ahaa daba socdeen waa ayagana waa jaha kale ay ahaayeen runtii aadaan ugu xumahay in nimanka anaga awalba hadda isma amaanaynin laakiin in muxuu ahaa dad odayaal oo elders ah meel ay joogaan ay soo weeraraan oo ay muxuu ahaa naf ka dayaan runtii aad iyo aadaan ugu xumahay meesha waxaa jooga odayaal dhaqameed iyo dad muxuu ahaa aad maris u ah ayaa joogtay xaafad dhexdeedna way ahayd marka anigu hadda cidda ay bartilmaameed ka dhiganayeen waxaan maqli jiray shabaabku markii ay muxuu ahaa weerar qaadayeen noocan oo kale dad ay bartilmaameedstaan aan maqli jiray hadda waxay bartilmaameed ka dhigteen anigu ma garanayo dad rayida ayaa meesha hadda liisoo sheegay inay ku dhinteen nin muxuu ahaa nabadoon ah oo nabadoon raaxa jecel aadan raaxa jecel leeyahay geeriis waa liisoo sheegay waxaa kaloo liisoo sheegay nabadoon ilayna asagana waa liisoo sheegay odayaasha nabadoonada firfircoon oo nabadda ka shaqeeya ahaa inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun ilaahay u naxariisto waxaa kaloo lii sheegay 2 sargaal oo muxuu ahaa dhaawac hore oo nimankaas nabadiidka xilligii xildhibaan aamino meesha ay ku geeriyoonaysay ku dhaawacmay oo dhaawacooda meesha lagu dabiibiyo meesha isiga sheekaysanay ayagana waa liisoo sheegay inay ku dhinteen runtii aadaan ugu xumahay dhacdadaas dhacday iyo 4taas ruux geeridooda sida la sheegay waa la soo afjaray ciidankii wadooyinka dagaalamaya saaka ay noohayaalka iyo bajaajada ay ku keeneen waa la soo afjaray meydkooda daadsanaa lagu yiri wadooyinka kuwii galay guriga ayaa qaar wali ay ka sii nool yihiin oo muxuu ahaa xabadii ay muxuu ahaa wali ay ka sii dhacaysaa ciidanka muxuu ahaa deegaanka muxuu ahaa
qabaa'ilka meesha deganaa ciidamadooda ayaana ku weegaarsan uma malaynayo in ay ku baxsan karaan inay leedahay. kulley waa markii lasoo afjarana saxaafadda waa u sheegi doonaa insha allah. waxaanse rajaynaa in saacadaha soo socdo tirada shabaabka ugu dhimatay annaga tanooga dhimatay ilaa hadda waaba ognahayba yaa dadka ku dhintayaan ognahay oo kuwa aan sheegay nabadoon raaxo jecel, nabadoon ilaynaa iyo labadaas sargaal oo dhaawac hore qabay oo hoteelka lagu dabiibayay oo muxuu lagu baxnaaninayay. raggaas allaha u naxariisto. kuwa muxuu ahaa gardarrada saaka kusoo duulina ayagana tiradooda waa liisoo gudbin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo, waana sheegi doonaa. laakiin waxaa nasiib darro weyn ah in iyaga oo aan bartilmaameed haysanin xaafado dad ay degan yihiin ay muxuu ahaay ay soo weeraraan. taasaa nasiib darro ah. kulley wixii war ahoo dheeri ah oo arrintaas dhaafsiisanna waan idiin soo tebin doonaa insha allah. idinkana dee waad ku mahadsantihiin bahda saxaafadda sidaad ula tiiraayeysan tihiin. beeshaada iyaan maqalnay in hoteelka abaabul dagaal oo nimankaas ka dhana uu ka socdo xildhibaan wararku saasay qoraya. odayaal dhaqameed waa odayaal dhaqameedna wax ma abaabulaane. waxaa meesha ka jiray waa dad muxuu ahay maris oo iska degan iyo dad muxuu ahay ganacsataa oo hoteelka deganaa inta badan waa ka fakadeen. labadan oday oo nabadoonada iyo wiilashan dhaawaca ka carari waay ayaa muxuu ahay ay ku galeen. dadka dad ganacsataa oo xataa qaarkood gobollada kale ka yimid oo suuqa xoolaha muxuu ahay xoolo ka gadanaya u badnaayana liigu yiri. laakiin insha allah wixii jiro way soo baxayeen. wixii dhaawac ahoo jirana insha allah dowladda federaalka waxay naga ballan qaaday inay ay diyaarad u dirayso oo ay soo qaadayso. aada mahadsantaada. marka bulshada meesha degan waxaan ugu baaqayaa inay isdifaacaan. shabaab cid ay dhaafahayn ma laha. sida ay muxuu ahaa aada u jeediin maanta hoteelkaasaa idinku daliil ah. dad rayida oo shacaba ay degan yihiin muxuu ahaa yool iyo bartilmaameed siyaasi la beecsanayo aadna jirin oo meesha ku jira aadna jirin in muxuu ahaa ay maanta ay dadkii rayidka ay saas ugu laayaan nabadoonna ay ku dhintaan. nabadoonnada ruuxooda oo dhintay xaqiiqatan waxaan soo dhigi doonaa da'da ay ku jireen. waxaan sawiradooda iyagoo khudbaynahan soo dhigi doonaa oo nabad ka baaqaya oo xataa muxuu ahaay aan ogoleen in beelaha qabaa'ilka ay dagaalamaan. waa dadkii samawadayaasha la dhihi jiray. waa dad da'da sideetameeyada gaaray. wixii dhalinyaro ahay markiiba waa ka dudeen iyo wixii ganacsataa hoteelka deganaa oo muxuu ahay soo ganacsi tagay magaalada beledweyne oo gobollo kale ka yimid baybakool ilaa Ethiopia laga yimaadaa dadka ka yimaadaa saaxda hoteelka. marka dhaawacyadii oo kale hadda in la soo qaado dhaawacyada waa la soo qaadayaa. dowladda federaalka waxay naga ballan qaaday inay diyaarad dilayso oo ay muxuu ahay ay dhaawacyadaas soo qaadayso. intii dhaawacyada diyaaradda ay ka tagaysana dhiig joojin waxaa loogu sii samaynayaa meelo oon ognahay ayaa loogu sii samaynaya. hadda hoteelka ku hareeraysan ee difaaca ku jiro nimanka la dagaalamaya waxaa naloo sheegay kuwa xoogga iyo ciidanka dowladda inay yihiin. ciidan dowladeed kuma jiro meeshaas. ciidan qabaa'ilka uu leeyahay macaawisleeya ayaa muxuu ahay gurmudka ka qayb galay. mar dhow aan la hadlay taliyaha ciidamada ee dhulkaas aan la hadlay wuxuu ugu yidhi ciidanka inanka tiro badan ayaa magaalada ku jiro uu yidhi oo isla markiiba isweerka qabtay. ciidanka militariga bays ugu banaaday waayeen. marka wax lagu filan yahay waaye. ciidankii wadooyinka ku dagaalamayna shabaabka ahayna waa la wada laayay oo wax laabtay oo ka cararay ma jiro. markii hore hoteelkana way aadeen ciidan oo infantry oo dagaalamayana waxay bajaaji iyo noohayaal ay ku soo geliyeen. kuwii noohayaal ku sii geliyay ciidankii deegaankaas ayaa la dagaalamay oo dadka rayidka ay lahaayeen la dagaalamay. ciidan is abaabulay oo muxuu ahay la dagaalamayay tuugada wax walba la dagaalamaya meesha deganaa. ciidankii meesha ku laayay haddana iyagaa ku weegaaraysan qoladan oo hoteelka galay.